Macluumaad kooban oo ku saabsan libaaxa. Libaaxa midabkiisu waa cawl, kiisa labka qaarkood waxa uu ku leeyahay shaash, halka tan dheddigga aysan lahayn. Libaaxu inta badan waa mid duurjoog ah oo laga helo koonfurta iyo bariga qaaradda Afrika, si gaar ahna waxa uu ugu badan yahay dhulka safaanaha ah ee ay ugaadha tirada badani ku nool yihiin. Libaaxa waa xayawaanka labaad ee ugu weyn bahda bisadaha waaweyn marka laga soo tago shabeelka. Sidoo kale, libaaxu waa kan keliya ee bahda bisadaha waaweyn ka mid ah ee u nool koox-koox. Inta badan kooxdii libaax ee meel ku wada nool waxay ka kooban yihiin 3 aar oo ah libaaxa labka iyo 12 gool oo dheddigga libaaxa ah, ayadoona ay u sii dheer tahay in ilmaha ay dhaleen ay ku jiraan kooxda. Habkaas ayayna sidii qoyskii oo kale ah isugu xiran yihiin. Celceliska libaaxa labka wuxuu gaaraa culeyskiis 180 kilogaram, halka celceliska libaaxa dheddigga uu gaaro culeyskiis 130 kilogaram. Libaaxii ugu cuslaa ee la diiwaangeliyey waxa uu gaaray culeyskiis 375 kilogaram. Libaaxa orodkiisa ama xawaarihiis waxa uu gaaraa 80 kiiloomitir saacaddii. Libaaxa dheddigga waa mid aad ugu fiican ugaarsiga marka loola barbardhigo libaaxa labka, ayada ayaana ah midda soo disha ugaarta. Libaaxa waxa uu astaan u yahay qaramo badan sida Armenia, Beljamka, Bulgaria, Ingiriiska, Itoobiya iyo Singapore.